wafdi ka socday hay'adaha UN-ta ayaa maanta soo gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Hay'adahan ayaa socdaalkoodu daarnaa u kuurgalida xaaladda adag ee ka dhalatay abaaraha taasoo sababtay in dad badan ay ku soo barakacaan gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maamulka iyo hay'adaha ka howlgala degmada Ceelwaaq Soomaaliya. Ugu horeyntii wafdiga iyo maamulka degmada ayaa waxa ay booqasho ku tageen xerada qaxootiga A1 halkaas oo ay kula kulmeen kumanaan oo barakacayaala. Sidoo kale wafdiga iyo maamulka degmada ayaa waxa ay booqasho indhaindhayna ku soo mareen isbitaalka guud ee degmada waxayna kula kulmeen dad badan oo bukaana oo halkaas ku sugan. indhaindhayn kadib wafdiga ayaa soo gaaray xarunta maamulka degmada Ceelwaaq halkaas oo ay kulamo kula qaateen maamulka degmada iyo hay'adaha ka howlgala deegaanka. kulanka ayaa diiradda lagu saarayay samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo qulqulaya xeryaha barakacayaasha iyo sidii loo ballaarin lahaa taageerada la siiyo. marka uu kulankaasi soo ilaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibraahim Guleed Aadan iyo sidoo kale xubin ka mid ah wafdigii maanta ka socday hay'adda UN-ta. maanta waxaan u yimid hay'adaha samafalka internationalka oo kormeer u yimid degmada Ceelwaaq si ay baahidii iyo dhibaatooyinka deegaanka ka jirtay ay u ogaadaan. marka si nabadgelyo ay noogu yimaadeen iyagoo macnaha baahidii annaga maamulka iyo saraakiishii iyo hay'adii oo dhan kormeer ku sameynayna IDP-sida ee degmada ka jira iyo baahiyaha degmada nawaaxigeedii iyo isbitaalada caafimaad darrada ka jirtay iyo waxbarashada intaba soo kormeeraynay. marka ilaahay idinkiis kormeerkii waa noo dhamaaday. hadda xafiiskan ku kulannay annagoo gabagabeynayna macnaha baahiyey iyo dhibaatooyinkii deegaanka ka jira baahidii aan u gudbinay. dhowr baahiyood oo deegaanka ka jiray aan u sheegnay sida dadka cunno la'aanta u baaba'ay oo soo barakacay deegaanada kale ka soo barakacay iyo dadka xoolihii ka dhamaadeen oo degmada ku soo barakacay deegaanadii barakacayaasha dhulka aan siinay si ay dadkaas loogu badbaadiyo caruurtooda iyo dadkaba in lagu badbaadiyo. deegaanadaas oo hadda u baahan in cunno lala soo gaaro biyo lala soo gaaro waxbarasho lala soo gaaro intaba waa u gudbinay. ayagana indhahoodii bay ku arkeen. hadda aad iyo aad bay u mahadsanay noo yimaadeen haddana ay nabadgelyo ku noqdaan. marka aad iyo aad baad u mahadsantiin shirkaanagii maanta intaasaan ku soo gabagabeynay iyagana si nabadgelyo ay ugu noqonayaan. hay'adaha internationalka ay ka wada socdeen UN OCHA waxa ka socday nin baa ka socday WFP laba qof ka socotay UNICEF sidoo kale maamadii u weyneed oo meesha ayaa ka socotay UN OCHA UNHCR WFP intaba WHO intaba waa ka socdeen iyagoo marka baahiyii deegaanada ka jiray oo maaragtay dhibaatooyinka abaaraha ay geysteen ay kormeerayeen. si nabadgelyo ayay u soo kormeereen barakacayaashii dadkii baahina intoo dhanba kormeerkaasaa lagu soo dhameeyey si nabadgelyo noogu soo dhamaaday. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Okay, thank you so much for receiving us here. It's been a very interesting visit. We saw a lot, but of course the time was very short. We are continuing to receive more information so that we can see how we can better support you in this drought and to support the people who are affected by the drought. So thank you so much for your time and all the organization for receiving this big group that came to visit here today. Thank you.